السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل والبعض شوكتان داوديال كسو دوادا برنامج كيني برو هليغن حلقة دي سيسادة حادا وإنو تضبات كان كسو قادان دونو هليغي سوماليدا هقاميه روحيقاها هو أحمد سلاني أحمد محمد محمود أولو يقان سلايو عبغارغي سياسة الصوماليدا هقاميه روحيقاها أمد الصوماليد halyeygii reer Somaliland waxa uu ku dhashay miyiga magaalada Burco sanadkii 1935 waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe sanadihii u dhaxeeyay 1946 ilaa 1960 waxa uu ku soo qaatay dugsiga Sheekha halka uu waxbarashadiisa dugsiga sare ku soo qaatay dugsiyada Sheekh iyo Camuud kadib waxbarashadiisa heer jaamacadeed ayuu ugu ambabaxay wadanka Britain 1965 ayuu dhameystay waxbarashadiisa jaamacadda oo uu ku soo diyaariyay cilmiga dhaqaalaha dabayaqadii sanadkii 1965 ayuu dib ugu soo guriyo noqday wadankii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaalida kadib waxa loo magacaabay agaasimo waaxid wasaaradda qorsheynta muddo yar kadib isla wasaaradda ayaa looga magacaabay agaasimaha guud ee isla wasaaradda qorsheynta qaranka ilaa uu wasaaraddaasi ka noqday wasiir kadib markii uu dhacay inqilaabkii Siyaad Barre kula wareegay hogaankii dalkii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya 1969 waxa uu ka mid ahaa guddi aqoon-yahan ah oo taliskii Siyaad u wakiishay inay dejiyaan hanaanka maamul ee xukuumaddaasi ku shaqeyn doonto kadib ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka sidoo kale waxa uu noqday ama soo noqday wasiirada wasaaradaha ganacsiga gudaha iyo dibadda iyo wasiirka ganacsiga gudaha sidoo kale waxa uu ahaa gudoomiyihii guddiga dhaqaalaha qaranka Axmed Silaanyi waxa uu ahaa shakhsigii magaca u bixiyay wasaaradda qorsheynta sida uu afkiisa ka sheegay maruu khudbad ka jeediyay magaalada Djibouti oo lagu xusay 40 guuradii qoridda af Soomaaliga waxaan aad xusuustaa guddigii af Soomaaliga qoristiisa wasaaraddeeda markii hore waxay u soo jeediyeen wasaaradda jaangooyada waan ka hor imid waxay caawisay dhaqankaygii aan ka soo jeeday ee reer baadiye ahaa anigoo dib ugu noqday caruurnimadaydii ayaa waxaan xusuustay marka reer miyigu degayo ee uu meel bannaan degayo haddaanu meeshu degana aanu ahayn oo uu yagleel yahay waxa la sameeyay waxa la jiray qorshe la sameyn jiray oo geela halka uu ka soo jeesanayo badaba la dugsado oo laga yara fogeeyo guriga aqalada aroosyada iyo meel gooniya la dhigo halka islaanta reerka ugu weyn meesha ay degayso waa la qorsheey jiray si buturuq la isaga bedeli jiray marka hal qorsheeyaa la oran jiray marka sidaa daraadeed waxaan anigu wasaaradda jaangooyada inaan saaxiib ahaan Allah u naxariisto markaan nooleen Ibrahim Megaag la oran jiray ayaa maaliyadda hayay marka waxaan jaangooyadu waa guddigii af Soomaaliga loo saaray Axmed Silaanyi oo bulshada reer Somaliland kuna Nelson Mandela Soomaalidu sanadkii 1982 markii uu ka dhidhiyay dhibaatada agajugleynta ciqaabta iyo xasuuqa lagu hayo bulshadii rayidka ahayd ee gobolada waqooyi ayuu ka goostay maamulkii taliskii kacaanka waxa uuna ka tegay wadanka Ingiriiska halkaas oo uu kaga biiray ururkii Somali National Movement SNM waxaana uu halkaas ka noqday wakiilkii SNM ee laanta UK sida ay ka markhaati kacayso marwadiisa Marwo Aamina Waris oo u dhaxday Axmed Silaanyi London markuu noogu yimi gudoomiyihii SNM ee London UK ayuu Axmed noqday waxaan u maleynayaa ilaa 2 sanadood ayuu ahaataa marka in badan shaqo aad iyo aad muhiim ah ayuu qabtay isagoo Axmed March buu tagay
malaa bishii shanaad iyo tii lixaad midna waxaa la xidhay siyaasiyiintii waaweyneyd ee reer waqooyiga cumar carte iyo ismaaciil cali abakar iyo waa tii la xidhay dee tiriisanka lagu soo ogey marka halkaasna hawl weyn buu axmed ka galo marka yurub oo dhan buu kusoo wareego qoladan la yidhaahdo interparliamentary unionka oo Geneva basekood yahay ayuu waraaq dheer oo iminka dee meel walba way taala waraaqdaasi buu qoray uu dacwad geynayo niman parliamentarians ah cadaalad darro lagu xidhay marka international parliamentary union qolada la yiraahdo qadiyada nimanka xildhibaanada la xidhay way qaateen way ka hadleen wafdi bay u direen xamar 1984 ayaa Axmed Silaayo loo doortay gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa ummadda Soomaaliyeed ee SNM ilaa iyo 1990kii ayuu xilkaasi hayay waxaa la tilmaamaa in uu maamulkii SNM u dhisay si mug iyo miisaan leh 1988kii howlgalkii Jugo ama jalka ahaa ee SNM ku soo gashay gudaha dhulkii loo yaqaanay waqooyi ee ay dhulkaas kaga awood roonaadeen ciidankii ugu awoodda badnaa geeska Afrika iyo ciidankii labaad ee ugu awoodda sareeyay qaarada Afrika waa ciidankii xoogga Soomaaliyeed ayaa lagu xasuustaa Axmed Silaayo isaga oo ka sheekeynaya taariikhdaasi ila dhageysta 18 May 1991 shirweynihii magaalada Barco ee beelaha Somaliland iyo ururada SNM kaga dhawaaqeen go'aansitaanka Somaliland wuxuu Axmed Silaayo kamid ahaa hogaamiyaashii hormoodka ka ahaa nabadeynta iyo heshiisiintii beelaha Somaliland wadadaga sanadkii 93 ilaa 97 wuxuu ahaa mudane ka tirsan golaha wakiilada taasoo ku lahaa haybad iyo waxqabad lagu bartay dacadnimo iyo toosinka dadaalka dalka 97 ilaa sanadkii 2000 dawladda Somaliland ee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu Axmed Silaayo ka soo qabtay jagooyinka wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta isagoo markii dambena si iskii ah iskaga casilay Mr. Silaayo markii dalka la xoreeyay 1990kii kama fadhiisan siyaasadda waxaana uu ka qayb galay dib u dhiskii iyo horumarintii dalka Mr. Silaayo oo lagu tilmaamo inuu yahay shakhsiyaadkii tirada yaraa ee ka dambeeyay deganaanshaha iyo xasiloonida Somaliland waxaana loo arkaa inuu dhowr jeer Somaliland ka badbaadiyay dhibaato soo fool leh ugu horeyn sanadkii 1990kii markii dalka la xoreeyay wuxuu u tafaxaytay nabadeynta iyo xasiloonida Somaliland waxaana gudoomiye uu ahaa guddi la oran jiray Forum for Peace oo lagu tilmaamo inay yihiin kuwii ka dambeeyay nabadgelyada iyo xasiloonida ka hana qaaday Somaliland Mr. Silaayo wuxuu kamid ahaa madaxda sare ee SNM ee taga gobolka Awdal Sanaag iyo Sool isagoo u ololeynayay nabadgelyada iyo xasiloonida mandeeqa Mr. Silaayo wuxuu kamid ahaa madaxdii hogaaminayay shirarkii bilowgii 1990kii ka dhacay magaalooyinka Berbera iyo sanadihii 1993kiina wuxuu qayb libaax ka qaatay isu soo dhawaanshaha beelaha taageersanaa SNM oo xilligaas qaarkood xurgufi dhex martay sidoo kale waxa uu ka shaqeeyay sanadihii 94kii ilaa 96kii dib heshiisiinta iyo soo afjaridii colaadii sokaya ee beelaha Somaliland ee soo wada galay halgankii SNM Mr. Silaayo wuxuu hormuud ka ahaa shirkii Caynaan ee lagu qabtay magaalada Caynaba shirkaas oo buddig u ahaa soo afjaridii khilaafkii siyaasadeed ee dhex maray beelaha Somaliland waxaanu door fiican ka ciyaaray shirarkii ka dhacay sanadihii 1996 Duruqsi iyo Beer sanadkii 1997 markii Cigaal dib loo soo doortay wuxuu kamid ahaa golihii wasiirada waxaana uu soo qabtay xilalka wasiirada wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta waqtigii uu hayay wasaaradda maaliyadda oo uu leeyahay waayo-aragnimo badan waxa uu sugay oo caadi ka dhigay shilinka Somaliland oo uu ku jiray qiimo dhac badani waxa kale oo uu wasaaradda iyo hay'adaha dawladda u dejiyay qorshe miisaaman oo ay ku howlgalaan Mr. Silaayo waxa kaloo laga ixtiraamaa wadamada reer galbeedka waxaana uu xiriir dawla leeyahay wadamada Yurubta midowday Mareykanka iyo Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa sanadkii 2001 oo ay dalka ka taagneyd khilaaf siyaasadeed oo baani oo ku salaysan habka loo qaybsanayo doorashada ka dhacaysa Somaliland
master silanyo wuxuu u taxfaxaytay sidii uu caadad ahayd inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac ee markaas xurguftu ka dhaxaysay oo kala ahaa xukuumadda iyo macaaridkii xilligaas master silanyo inkastaanu ku guulaysan inuu heshiisiiyo labada dhinac wuxuuse ku guulaystay inuu qaboojiyo oo qanciyo labadii dhinac ee ishayay taasoo horseeday inaan labadii dhinac ee ishayay aynan ku kicin wax aan dani ugu jirin qaranka sanadkii 2002 wuxuu ku dhawaaqay xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye oo uu gudoomiye ka noqday doorashadii madaxtooyada Somaliland ee 2003 Abriil tartankii madaxweynaha waxa Axmed Silaanyo iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax lagaga helay 80 cod taasoo ay aqbaleen hogaamintii siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waqtigii uu mucaaridka ahaa taasi oo ka bilaamaysa aasaaskii urur siyaasadeedkii kulmiye waqtigii uu madaxweyne Silaanyo ka degay xilka wasiirnimo ee xukuumadii marxuum Cigaal Axmed Silaanyo wuxuu ku dhawaaqay in uu siyaasadda ka nasanayo ama ka tanaasulay sida uu ku sheegay shir saxaafadeed uu waqtigaasi qabtay muddo yar kadib waxa geeriyooday madaxweynihii Cigaal waxaana xilka madaxweynenimo loo wareegay oo loo dhaariyay mudane Daahir Riyaale Kaahin madaxweynihii saddexaad ee Somaliland oo ahaa marka ku-xigeenkii marxuum Cigaal markii dhacdada geerida madaxweynuhu dhacday ee xilka madaxweynenimo loo dhaariyay Daahir Riyaale Kaahin waxa uu muddo yar kadib saaxadda siyaasadda dib ugu soo laabtay madaxweyne Silaanyo waxaana uu si degdeg ah u aasaasay urur siyaasadeedka maanta xisbiga kulmiye isagoo gudoomiye ka noqday waqtiga ururka uu aasaasay Axmed Silaanyo waxa la weydiiyay oo saxaafaddu weydiisay go'aankiisii hore ee uu ku sheegay inuu siyaasadda ka fadhiistay kana nasanayo madaxweyne Axmed Silaanyo waxa uu si fudud oo macquul ah ugu jawaabay su'aashii hasa waxa uu yiri ismaan soo sharaxeen ama ururkan ma fureen haddii madaxweynihii hore ee Cigaal nool yahay waayo wuxuu ahaa nin aan dalka iyo dadkaba ku aaminay oo aanan looga baqayn laakiin markii xaqii u yimid ee uu geeriyooday waxaan go'aansaday in aan dalka u gurmado isuna soo taago hogaaminta dalka maadaama dalkan tacab naf iyo maalba leh la soo galay in aanu maanta laba farood dhexdooda ka bixin taasaa igu soo celisay ayuu Axmed Silaanyo yidhi masraxa siyaasadda intaa kadib ururkiisa kulmiye waxa uu soo galay kaalinta labaad isagoo sidaa ku noqday xisbi rasmi ah 2003 ayaa lagaga guuleystay 80 cod oo kaliya waxaana uu taariikhda ku galay in uu tanaasulo isaga oo booq kicin karayay waxa uu ka doorbiday in aanu burburin wixii uu tacab ka soo galiyay 7 sano kadib sanadkii 2010 ayaa loo doortay madaxweynihii afraad ee Somaliland mahadooyinka taariikhda u galay hogaaminta master Silaanyo ee aan la iloobi doonin ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa waxa uu noqday madaxweynihii u horeeyay ee dawladii la isku oran jiray Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Somaliland ku dhiirada bilaabida wadada isku xidha magaalooyinka Burco ilaa Ceergaabo oo qarniyo badan bulshada iskaga gudbaysay ay mari jireen rafaad marka ay dhulkaas u kala goosheeyaan waxa uu ahaa hogaamiyihii SNM ee sida ku dhaca leh ugu dhiiraday in ciidamadii SNM ay gudaha u soo galaan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland kadib markii ay heshiiyeen labadii madaxweyne waa Mingista iyo Siyaade waxa sidoo kale lagu xasuustaa in uu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee sida ku dhaca leh u aqbalay in 80 cod oo kaliya lagaga guuleystay Axmed Silaanyo waxa sidoo kale lagu xasuustaa waqtigii uu madaxweynaha ahaa xeeladii siyaasadeed ee xitaa dawlado badan oo waaweyn ay ku burburi lahaayeen sidii uu uga tabaashay waa waqtigii sida mahigaanka ay golihiisa wasiirada badankoodii iska casileen xukuumaddiisa 12 mas'uul ayaa waqtigaasi xilka iskaga dareeray Silaanyo oo waqtiga saxaafadda la hadlayay waxa hadaladiisii ka mid ahaa silsilada waxa arkaa dadku haddii ay la socon kari waayaan maamulka dawladda jira
iyo madaxtinimada la socon kari waayaan inay iscasilaan xaq bay u leeyihiin dowladduna isku adkeyn maysa waxa weeye halkoodii dad kalun baa gelaya insha allahu tacaala muxuu ahay dowladdu waxa weeye madaxtooye weeye madaxweynaha xukuma haddii wixii la socon kari waaya ee la jaan qaadi kari waaya maamulka jira markaa iyo duruufaha dalka jira dee xaq bay u leeyihiin iscasilaan haddii iscasilayaan iska tagay halkoodii dad kalun baa gelaya eedda la soo jeediyey arrinta eedda waxba kama jiraan anigu cidaan garab siiye ma jirto golaha dhexaa ku shuqul leh cid ay soo saarto xisbigu nidaam buu leeyahay sharciyad buu leeyahay qaabka loo maraya waa sharci caddaana weeye halka ay martuun baan maraya xisbigu halku badidu u bato bartay xisbiga golaha dhexe xubnaha golaha iscasilay haddii iscasilay dee ikhtiyaarka u leh dalku waa farabaran yahay ummaddu waa farabaran tahay dad badanoo shaqaynaya oo diyaar u abaa jira ay qaranka u shaqeeyaan ciddii la shaqayn doontaa way la shaqo doontaa ciddii iska tegi doontaa way iska tegi doontaa sidoo kale waxaa lagu xasuustaa maalintii la dilay allaha u naxariistay darbigii adkaa ee snm waa lixle hadalkii ahaa snm waa wada lixle alle cimriga iyo caafimaadkaba ha u barakeeyo axmed silaanyo hadda waa 85 jir waxa uuna dhalay 5 caruur ah waxaana u dhaxday marwo aamina waris sheekh maxamed barnaamijkeennii barahalyeygan qaybtiisii saddexaad oo aynu maanta ku lafaguraynay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo intaas ayuu daawadayaal ku dhan yahay barnaamijkani waxaa idiin soo jeedinayay idiin soo diyaariyey isla markaasina idiin soo tabinayay anigoo ah maxamed cali cadaani inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo